السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا دمانتين آد يا دا إذين ودا جعلها ميل با أدونك الدعالة ودا جوجتان waxaa idin leeyahay habeen wanaagsan habeen ayay noo tahay saacadan habeen wanaagsan aan idin leeyahay waa 12 saac habeenan galeena habeen wanaagsan dhammaantiin waxaa idin leeyahay janalku waa janalkiina aniga waa shamis kusoo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad dhammaantiin waxaa idin leeyahay haddii aad iigu cusub tahay soo dhawow please subscribe inoo dheh qaybta hoose taabo gaduudka ah subscribe inoo dheh like iyo share comment dhiirgelintana waa xageena haddii aad hore noola joogto comment qurux badana kaa sugeena haddii aad nagu cusub tahayna fadlan soo dhawow waa ku leenahay thank you dhammaantiin xoogaa idin wada jeclahay soo wada dhawaada idin leeyahay habeenkaa idin qurux badnaado maasha allah tabaarakallah sidaa nagu ogeedeen qolkeena yaraa aan dhex taaganahay aad aragtaan alxamdulilah dhammaantiin soo dhawaada maasha allah tabaarakallah caawa waxaan wadaa ama aan rabaa inaan idin sheego idinkana aad fikradiina ama si aad u aragtaan aad usoo duceysaan qofkan aan ka hadli rabo alxamdulilah hadeertaan saacado gudahood adiga almost waxaa kasoo wareegtay 3 saacadood aan dhihi karaa ayaa kasoo wareegtay ayuu fariin iisoo dirsaday waa wiil Soomaaliyeed waxa uu ku nool yahay muqdisho ayuu ku nool yahay wiilkan wuxuu dhahay walaalkeen ah waxaan joogaa muqdisho mar ayaan tegay dhahay afrikadan dhexe meeshaasaan waxaan isku soo baranay dhahay gabar ayaan isku soo baranay xiriirkeena meeshaas ka bilaabmay muddo ayaan xiriirkeena wadnoo dhahay ani dib ayaan usoo laabtoo dhahay leen ayaan u tegay leenkiyaan soo waayay waan iska soo laabtay muqdisho kusoo laabtay gabadhan abaaya ahna si xaqiiqdii xoog ayaan isku jecelnahoo dhahay ama oo jecelkeena u weyn yahay baaxad u leeyahoo dhahay marka wuxuu dhahay wiilkan aboowe wuxuu dhahay dhibaatada i haysato abaaya aan rabaa inaan kula wadaago maanta waxaan ahay weli bukaan socod ayaan ahay waxa aan saaranahay sariir subxaanallah waxaan saaranahoo dhahay sariir aad iyo aad ayaan u xanuunsanayaa xaqiiqatan wuxuu dhahay lagama hadli karo sida aan ahay ama sida aad dareemaysidoo dhahay xaqiiqdii waad iga naxaysaa haddii aad aragtoo dhahay ama leef anoo hadlaaya aan video kusoo duubo dhahay abaay macaanta iga raali noqo wiilkan hore ayaan isku garanaynay ciyaar xaafada isla ahayn muqdisho ayaan wada deganaan jirnay wuxuu dhahay marka abaayo wuxuu dhahay gabadha waxayna ay joogtaa hoo dhahay Africa gaar ahaan Kenya ay ku nooshahay dhahay meeshaasaan saaxiibo ku ahaynoo yiri waa aan kasoo tagoo dhahay anigoo muqdisho joogo waa shaqaysan jiroo yiri sidaa iga warqabtaybo nin shaqaysto ayaan ahaayoo dhahay xamaasho ordo kaala arag ah aan inaba caadi ahaynoo dhahay maasha allah tabaarakallah waan garanayaa wuxuu dhahay Nairobi iyadoo joogto ayaan biil u diri jiroo dhahay because qofka aad jeceshahay oo dhahay shaqsiga aad jeceshahay wax walba uu yahay waa in aad ku jeclaataayoo dhahay ama aad rabtaayoo dhahay aad u baahan tahay ayay tuhuu dhahay marka wuxuu dhahay meeshaas biil ugu diri jiroo dhahay xiriirkeena sidaas ayuu ku qurux badnaayoo yiri ama aan ku wada soconoo dhahay aan raalina iskaaga ahayn hore iyada leenay u joogtoo dhahay anigana leenkii uu iga soo halaabay oo shaqadeedan dib ugu soo laabtoo dhahay iyada leenkeeda suganaysay alxamdulilah in muddo ah kadib wuxuu dhahay leenkeedii ku baxday America ayay caga dhigatoo dhahay insha allah nin ayaa leenka looga gadoo yiri naagteeda waaye ayuu ku kaxeenayay nin ayaa looga gaday America way tagtoo dhahay in muddo ah kule Nairobi way fadhisoo dhahay laakiin ilaahay wuu nabadgeeyay way tagtoo dhahay way soo wici jirtay saacad wuxuu dhahay see tahay maxaa cabtay xataa waa liidhihi jiroo dhahay meeshaan cagta dhigaayo ama meeshaan istaagayo dhahay waxaan dhihi karaayuu yiri alla ilahay way iga warqabtay oo maalinne meese iga aamusin wuxuu dhahay marka xaqiiqdii wuxuu yiri dad ayaa naga dhex shaqeeyay dhahay dad ayaa naga dhex shaqeeyay wuxuu dhahay gabadha walaashay ah ani aad iyo aadaan u jeclahoo yiri ugu kalsoonahoo dhahay iyadana sidaa iyo sid lamid ah dad ayaa naga dhex shaqeeyay dhahay dad ayaa arrimo qaldan iiga gudbiyay dhahay anigana waxaan ahaayoo weligay wuxuu yiri hadday isoo wacdo dhahay weligay intaan dhagta saartay ma ana la sheekaysanoo yiri face to face aan u sheekaysan jirnoo dhahay
alxamdulilah mar walbaba iyo mar kasta wuxuu dhahay face to face aa u sheekeysan jirnoo yiri face to face aan wada hadli jirnoo dhahay haddee whatsapp iga soo wacdo iyo haddee email iga soo wacdaba haddee labadaas qadka ka weyso ee caadi iisoo wici jirto yiri qadka soo galay dhihi jirtoo dhahay shaqada markaa jooga xataa leefa u wici jiroo dhahay shaqadaa joogaa wax walba macnaha aan ahayoo dhahay ama aan ku sugnaayo yiri waxaan dhihi karaayo yiri 95% way ka warqabtay waxa aan ku sugnaa meesha aan seexdo meesha aan kasoo kaco inaan guriga waalidkii ku noolahay inaan subax shaqo uga kalaho habeenkii soo galo maqribadii aan imaado iska qabeysto banooni hadaa aadaya aan dhaho yir banooni kubada u socdaa banooniyaa soo ciyaaraya markaa ka imaado aan wada hadalnoo dhahay aan wada xiriirnoo dhahay hooyadii way taqiinoo dhahay walaalahay way yaqiineenoo dhahay adigu wuxuu dhahay sheedaanna wuu iska jiraayoo dhahay waa nagala dhex shaqeeyuu dhahay gabadhaas abaaya ah waxay ku nooshahay dalka America ayay ku nooshahay saacada la joogo wiilkaas waxa ay isku barteen waxay tahay please asxaabe waxa idinka baryaaya videogan hadduu idin soo gaaro inaad share gareysaan shaqsi ahaanteeda ma aha wiilkan Soomaaliyeed oo walaalkiina ah aan garab istaagno garab buuxana aan siino waxaan idin leeyahay u share gareeya sidee u aragto magaceeda ma sheegayo laakiin ina Kenya ay joogtay in muddo ah Kenya ku nooleed 4 sano almost in Nairobi ay joogtay wiilkan Kenya ay isku barteen oo uga soo tagay Muqdisho ku soo noqday asigana oo ka shaqeeya barakaad intaas qofka markuu maqlo ama uu dhageysto wuu isfahmaya wuuna aqoonaya wuuna garanaya wuxuu dhahay dad ayaa naga dhex shaqeeyay waliba iyadoo Afrika joogto asoo Afrika ku nool biili jiray wax walbo ay u baahato bixin jiray hore waxa ma maqli jiray naag abaal male naagay abaal ma bilihida maqli jiraba laakiin channelkayga aniga maanta waxaan dhihi karaa waxa ku xiran waa hablo waa gabdho maasha Allah tabaarakallah please videoga codsiyo iga yahay u share gareeyo walaalkeen adi walaalka waay ani walaalkee waay tan kale walaalkeed waay dhammaan walaalkeen waay wiil hadduu yahay waa walaalka dhammaanteen uu noo siman yahay wuxuu dhahay qofkii wuxuu dhahay maanta aa ka warqabtoo dhahay saacad u waceysoo yiri war wuxuu yiri anoo subax shaqo u kala hayo dhahay aan isku waqti ahaynoo yiri oo waqtiyadeena ay kala duwan yihiinoo dhahay aan habeenkii la dhafri jiroo dhahay almost subaxii galayhoo dhahay aan habeenay ii tahay wuxuu dhahay iyada saan labadeenaba xiisaan hayo dhahay waa isku xiisnoo dhahay waa isku baahanoo dhahay dad isjecelaanoo dhahay wuxuu dhahay wax walba jecelkeena ka weynoo dhahay marka wuxuu yiri hurdada aan dhafraayo wallahi ma xisaabsan jirinoo dhahay tiradana ma iigu jiri jirinoo dhahay isfiican dhageyso dhafarka aan dhafraayo dhahay xisaab ma iigu jiri jirinoo dhahay waad dhafartay subaxina nin shaqo u kala hayaa tahay oo kumbiyuutaro kor fariisanayo walaasha mac salaama dheh weligay niyadeyda kumay soo dhicinoo dheh wallaahi wuxuu dhahay salaada subax markii noola adimo mac salaameyn jirnoo dhahay hal saac haddaan hurdo igu filnaan jirtoo dhahay salaada subax markaan soo dug intaan weysaysto oon dukada aan seexan jiroo dhahay hal saac markaan aan jiiftani hal saac subaxnimo iridaan ka degaayo dhahay shaqaan usii casocodoo dhahay waa cararayo dhahay marka waxaa jirto dhibaatada meesha taalo waxay tahay shaydaana jiro bini aadan horta waxaaba jiraba ummadda ka dhex shaqeysto dadaa wacay dad ayaa wacay naayaanhaa la yiri ninka aad jeceshahay oo aad ku waalatay oo indhaha aad u beeshay adigoo hataa aadan la joogin ya oo aadan la fadhinin aada agtiisa aada ka muuqan ya oo sidaan ugu waalatay inuu naa kale saaxiib leeyahay ma og tahay oo mar dhow guurkiisa dhici raba ma og tahay ka hadal bal ya ninka aad sidaa ugu waalataa la dhahay aad u malayso adiga keliya inuu aad leedahay asigana adiga uu ku leeyahay aad isku malayso oo aad sugayso oo hamiga dheer iyo niyada dheer aad u qabto oo aad leedahay waan u dacwoonayaa xataa haddii uu ninkan naga dhaco aad leedahay aa la dhahay ya
haddaba ninka wuu kaa dhacay aa la dhahay madaxweynihii hore wuu dhacay madaxweyne cusub ayaa America laga doortay ayaad rabtaa inaad dacwo u furto waa nin naa kaleetoodaa la yiri waa nin naa kaleetoodaa la dhahay abaayo guursadaa la dhahay ninka ma fahanti ya intuu kula hadlaayo kula sheekaysanayeen naagta boosaaba lagu xirabo meese halli jirin ya inaad qaadayso oo aad America geynayso ayuu naagta kale ka dhaadhiciyay ha hadlin inta aan la hadlaayo ama aan la sheekaysanayo iyadana way ogolaataa la dhahay naa sidaa ula soco doqon baa tahay doqon yahay ninka wuu ku sirtay intaa ka badan ha la hadleen ha wicin wuxuu dhahay Facebooka blogga iga saartay WhatsAppka way iska bedashay email way iska bedashay meel aan kala xiriiro meel aan ka waco waa isoo wacdoo yiri anagoo saas isku macsalaameenoo dhahay haye xabiibi ii seexo haye xabiibti waan seexanayaa markaan isdhahnoo dhahay ee taleefanka saas u damiyoo dhahay ahaa barkinta u dhigay musqusha aan galoo dhahay soo weysaystay malaha waxay isoo wacdoo yiri 21 jeer oo yiri intaan weysada ku maqnaa oon qolka kusoo noqonayo dhahay wuxuu dhahay waa soo weysaystay waa soo taleefankii oo birqayaan arkoo dhahay waa fiirilto 20 iyo hee waa wuxuu yiri baay maxaa kugu dhacay maxaa ku qabsaday maxaa ku helay markaasay idhaahdo wariyaa ilaan anaa been aad igu dhisaysay ilaan anaa been igu haysatay ilaan anaa been ii dhoodhoobaysay ilaan anaa dhalanteed cidlaa i tusaysay miya maxaa iga siranaysay maxaa sidaa iigu koolkoolisay maxaa jaceylkaas balaaran iigu beertay haddii aad dan ii hele iga lahayn ama aad guursanayso maanta laga bilaabo ya heblaayo maba taqaanidbo aan is ammaan gelino xaggayga waad ka dhimatay adiga xaggaagana waa ka dhintay macsalaama qabna way ugu sii soo dhahay halkalan aniga igama soo bixinoo yiri iyada unbaa hadlaysoo dhahay qiilinaysoo dhahay markay dhammaysato hadalna isdhahayo dhahay isla markii baloogaa lii dhiiboo dhahay WhatsAppki iyo iimahan isla markii qadkay ka saartoo dhahay ilaa al'aanna wuxuu dhahay subaxaasoo yiri istaagan ka dhaco yiri salaad subax hataa ma aana dukanoo dhahay istaaga ka dhaco dhahay ilaa hadda sariiraan saaranahay horta alxamdulilah oo dhahay sidii hore waan dhaamaayo yiri xoogaa yiri waan roonahoo yiri waan hadli karaayoo dhahay laakiin waxa i haystuu yiri beerka iskii dhex yaaloo dhahay jacayl dhabaa u qabaayoo dhahay weligee iyo allaheeyoo dhahay weligee iyo allaheeyoo dhahay in aan qayaano iska daaye ya xataa hal habeen ma aana ku fikirinoo dhahay gabadha walaashaa ah qayaan ama dhibaato u geyso ama si ula dhaqan weligee ma aana ku fikirinoo dhahay aad iyo aadna waan u jeclahoo yiri xaqiiqdii wuxuu dhahay waalidkay way iga naxeen waa layga quustoo yiri sidii quraan laygu wadoo dhahay caafimaad haddii ilaahay isiiyoo dhahay alxamdulilah bliis abaay waan ku baryaahoo dhahay iga sheekee sidaas isaasna waaye magacna iska dhaafoo dhahay way garan doontaa wayna ogaan doontaa maalintii subaxii ee saas taleefanka iigu damisoo dhahay yaa ilaa hadda sariiraan saaranahoo yiri 2 lug aan leeyahay ma isdaba dhiginoo dhahay haddii ay rabbi ka baqaysoo yiri qof rabbi ka baqaayay ee tahoo dhahay intee isgarato ayay isoo wici doontaayoo dhahay aana maqli doonaayoo dhahay biliis asxaabay walaalkiin u duceeya in ilaahay caafimaad siiyo sarartaas ilaahay ka kiciyo videogaana qofka soo gaaro waxaan ka codsanayaa wiilkan walaalkeen ah inaad u sheergareyso qof walba qofka kale ha sii sheergareeyo ilaa America sheergareen ha ku gaaro yaa see gabadhaas u dhageysato ee u hesho hadday wada hadlaan ama ay ishelaan ama ay xiriiraanna insha allahu tacaala wuu ila soo qaybsan doonaa haddii ilaahay yiraahdo waana idiin soo sheegi doonaa wiilka waa walaalkay dad hal meel kusoo barbaaraanahay waa walaalkay dad hal meel kusoo wada barbaaraanahay kusoo wada koraanahay alxamdulilah qofaan dhahaya maanta waan ka sugaaya ama waan raadinaya ma aha horo iga soo wici doonaa haddii alla yiraahdo dhammaantiina waxaa idin leeyahay kheyr iyo nimca idinkaaga tagaya dhammaantiina xoogaa idin jeclahay videogan haduu idin soo gaarane balanteena saas ha noqoto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteeda aad ku jeclahay dhammaantiinba